saaxiibayaal maanta qisadeena waxaan uga sheekayn doonaa qoys ka mida jinka oo sameeyey wax aad u la yaab badan. weliba xilli sidaa usii fog maahan, waa 2010kii, waa xilli aan sidaa usii fogeyn. qisadu waa qiso caan ka ah bariga dhexe. waxay ku dhacday 3 wiil oo saaxiib ah oo dalxiisayaal ah oo muslimiin ah oo u dhashay dalka Sacuudiga. qisadaasi ayaan maanta rabaa inaan idinla wadaago. markana saaxiibayaal, intaan qisada bilaabin ha iloobina inaad muuqaalka xaqiisa iska bixisaan oo aad like-ta saartaan. sidoo kale channelka subscribe saar haddii aadan horey subscribe u saarin. haddii aad jeceshihiin qisooyinka noocaana oo cabsidaana, qaybta hoose ayaad igu soo qori kartaa inaan soo badiyo. markana inoo bilaaba qisadeena maanta. qisadeena waxay soo bilaabanaysaa sanadkii 2010kii. waxay ka bilaabanaysaa dalka Sacuudiga. waa 3 wiil oo dhalinyaro ah, Khalid, Xasan iyo Cali. 3 wiil oo dhalinyaro ah oo saaxiib ah oo ku jira gabagabadii dugsigooda sare. dhowaan waxay doonayaan inay jaamacad bilaabaan, laakiinse markan waxay haystaan isbuuc fasaxa. waana 3 saaxiib oo aad isku fahamsan, aadna isku jecel run ahaantii. 3dooduba qoysas ladan ayay ka dhasheen. mid ka mid ah ayaa aabihiis waxaa u yaala gaari 4-wheel drive ama gawaarida bacaadka iyo saxaraha mara ah. gaarigaasi oo aabbuhu uusan isticmaalin. marka waxaa maskaxdooda ku jirta inay safar dalxiisa aadaan oo tayndhadooda ay ka dhistaan saxaraha, halkaasi ay ku xoolo qashaan oo sida ragga waaweyn usoo dalxiisaan maadaama ay dhalinyaro yihiin. markan ay ku jiraan da'dii la aaminayay, oo hadday dhahaan aabe waxaan aadayaa dalxiis oo kale, uu aabbuhu ogolaanayo, mas-uuliyad ay ka muuqanayso. xilligaas ayay ku jireen. nin kasta waxay dhaheen waalidkiisa ha ka soo dhaadhiciyo, ha soo qaado wixii aan u baahannahay, cunto, hilib ayay soo qaateen, lacag ayay soo aruursadeen si markay tagaan saxaraha fog ay dadka ay ku arkaan saxaraha ama xoololeyda ah ay neef uga iibsadaan oo meesha ay ugu qashaan. hilib haddii u baahan yihiin way soo qaateen. ninkii gaariga aabihiis uu lahaana gaariga ayuu ka soo qaatay. aabe waxau yiri gaariga shidaal igu shub, khalaas saaxiibadii ayaan israacaynaa, hebel iyo hebel. aabbayaasha 3daani mid kasta aabbayaashaasi ka mid ah waa uu garanayaa 3 wiil oo kale ee wiilkiisu ama 2 wiil ee kale ee wiilkiisu uu saaxiibka leeyahay. aabbayaashood ayuu xitaa garanayaa, xitaa aabbayaashu way iswada garanayaan. marka 3 wiil oo dhallinyaraa, da' fiican ku jira, awood leh, dalxiisaynaa dhaheen. optionka ama khiyaarkoodana ay tahay dhammaan way u ogolaadeen aabbayaashu. waxay dhaheen 3diina hadday tahay oo aad doonaysaan inaad dalxiistaan, waxaad u baahantihiin waa diyaar. waxaa la siiyey lacago, waxay qaateen fridge sidoo kaleeto. matoor yar ayaa u saaran gaariga. fridjkaasi matoorka ayay shidanayaan oo hilib ayay ka buuxiyeen, cuntooyin kala duwan ayay ka buuxiyeen. tayndho aad u weyn way soo qaateen oo ku filan 3dooda inay habeenkii seexdaan. waa xilli jilaala oo qabow uu jiro. waxay aadeen oo ay afka saareen dhanka iyo saxaraha ayagoo gaarigoodii kaxaysanaya. way dhaqaaqeen. xilli galaba ayay ahayd. markii ay fogaadeen oo ay aad uga fogaadeen magaalada, ayay meel saxaraa oo cidlaa oo xitaa wadadii weyneed way ka leexdeen. waxay wadada ka fogaadeen cabaar, aduu qiyaastii 3 kilomitir oo kale. markii ay halkaasi tageen ayay tayndhadoodii ka taagteen. kadibna dabkii ayay shiteen. maqribkiyaa la gaaray. dabka markay shiteen, xaabadii wixii dhan way wataan, way kusoo talagaleen. salaadii maqrib ayay dukadeen. kadibna waxay bilaabeen inay cunto karsadaan. hilib ayay samaysteen, cunto yaroo fudud ayay samaysteen. kadibna halkaasi ayay fadhiyeen. markii ugu horreysay qaxwadii ayay shubteen. waxay bilaabeen inay qaxwadii cabaan ayagoo fadhiya oo sheekaysanaya. mid ka mid a uu sidaasoo kale qaxwadii uu hayo oo uu cabayu fiiqsanayo ayuu wuxuu hortiisa ka arkay meel cabaar u jirto, laakiinse araggiisa si toosa ugu aadan. waxa uu ka arkay wax cadaan ah oo shakliga ama sheebka uu fahmi waayey waxay noqon karaan, laakiin waxaasi waxay sameynayeen dhaqdhaqaaqaasi oo ah in marna ay weynaanayaan marna yaraanayaan. sida in weynaan sida inuu shay fareejaynayo kale ziis ahaan, wax mar isweynanaya mar isyareynaya mar isweynanaya. wixii uu arkay waa uu la yaabay. waxa uu u sheegay saaxiibadiis. waxa uu ku yiri Khaalidow eeg, waxaasi waa maxay halkaa taagan? waa bini aadam soo maahan? wuxuu yiri may bini aadam maahan, waa ey. haddana Xasan ayaa yiri may waxaasi ey maahan, waa bini aadam. sababtoo ey wuu ka wen yahay waad u jeedaa. waxay isku qabsadeen waxaani waa ey, waa bini aadam iyo maahan.
mid wuxuu leeyahay hadduu bini aadam ahaan lahaa waxaa dhici lahayd inuuna soo aaday maadaama dab noo shidan yahay meeshu ay mugdi tahay xilligan waa salaada cishaha iyo maqribka inta udhexaysa weeyaan yani meeshu waa mugdi wuuna soo aadi lahaa bini aadamda wuuna salaami lahaa qaarna waxay dhaheen labadii kale waxay dhaheen ey hadduu ahaan lahaa yani ayadana waxaa dhici lahayd in meeshu waa cidlo meeshaan siduu ey u joogaa may ey wuu joogi karaayo waxaa laga yaabaa tuulooyinkan ugu dhowdhow inuu ka yimid kadibna uu annagana soo dugaashanayo oo doonayo in waxaan aan cunayno iyo hilibkan iyo waxaan usoo carfiya laga yaaba ayagoo sida u sheekaysanaya ayaa wixii cadaaye marna weynaanayay marna yaraanayay way joojiyeen yani isbebedelkay samaynayeen kadibna dhanka meel carada tuuran maaragteen markii dabayshu ay ciidda soo qaato badanaa dabayshu ciidda meel ayay isugu kuustaa marka meel yaroo kuusan meeshu waa bacaad waa bacaad aada waa saxaro waa dareemi kartaan meeshii caradu kuusneed ayuu shayga cadaa koray meesha qimada ama ugu sarreysa markuu istaagay ayuu hal mar qarsoomay yah sidee u dhaceen waxisay u qarsoomeen markaasuu yidhi khaalid awalba waa idiin sheegayo waxani waa ey meesha ayuu fuulay kadibna dhinaca kale ayuu buurta uga degay marka wuxuu leeyahay xasan sidee ku dhici kartaa axmedow in shaygaani markii hore marna u weynaanayay marna u yaraanayay siduu u farajeynayay macquul maahan aduu xogaa cabsina way iska jirtaa way cabsanayaanoo waa dhalinyaro haddana waxay leeyihin 3 qof aad tihiin wax waxaad inka qaadaya male hubkiinaad haysataan gaarigiinaad wadataan waa soo taxadarteen marka ha cabsanina waxay noqdaanba waa wax hadda aan wax idinka dhibi karin sidaa ayay sheekadii uga gudbeen markii sheekadaasi ay ka gudbeen kadib cuntadii ayay cuneen dabkii waa uu u shidan yahay oo ay qaaqamayaan ama way kulaalayaan ama yani dabka way isku qandicinayaan oo kaleeto cuntadii ay meeshii ku cuneen kadib markay cuntadii cuneen intii ay cuni waayeenna meeshii iska dhigeen oo saxanka iyadoo ku jirta ayay uga tageen kadibna tayndadooda iska galeen way iska seexdeen habeenkaasi markay seexdeen durba dabcan saaday u seexdeenba ilaan meeshu waa meel saxaraa tayndadooda ku dhex jiraan jawigu waa qurux badan yahay cid hurdada kaa qasaysa ma jirto waxaa laga yaabaa inaad sidaa u seexatayba aydan soo kicinba maantana haddii dalxiisi ahaayeen way yara daalan yihiin way seexdeen salaadii fajar ayay soo kaceen salaadii fajar markii ay soo kaceen salaada ayay weyse qaateen way dukadeen kadib markay dukadeen oo qoraxdiina ay soo baxday cabaar markay sheekaysteen kadib ayay doonayeen inay cunto samaystaan laakiin hal mar ayay ku baraarugeen in saxankii xalay ay cuntada uga tageen saxankii la nadiifiyey la salaaxay yacni si fiican loo nadiifiyey cuntadii aad loo cunay xitaa jab yaroo bariisa uusan meesha saarnayn war maxaa dhacay kadib waxay bilaabeen inay kaftamaan adiga xalay xili dambaa soo kacday waxaa bilowday inaad saxankii wixii reebka cunto soo maahan war wallahi ma soo bixin aniga adiga le amay tahay war adiga maahana waa aniga adig dhalinyaro waa iska taqaanaaye waa la kaftamay cabaar markay kaftameen kadib ayay dhaheen niyow dhegeysta hadday run tahay oo meeshaan uusan yani mid naga midoo soo kacayo cuntadaasi cunay uusan jirin waxaa laga yaabaa inay wax kaloo khatar nagu ah yihiin runtaan isu sheegno nin kasta ha dhaarto maya nin kasta wuu dhaartay wuxuu yidhi anigu shaqo kuma lihi mana soo bixin mana aanan cunin kadib waxay dareemeen cabsi sababtoo ah isla hadalkaas laftirkiisa ay cabsi ku dheehan tahayoo cuntadii yaa cunay waxay fiiriyeen meeshu maadaamay dhul saxaraa tahay meel bannaan ay tahay kadib yani habeen ay ahayd xalay waxaa caadi ahayd inay raadka arkaan laakiin wax raada meeshaasi way ka waayeen yaa sidee wax u jiraan wax raada meeshan ma yaalaan waxay dhaheen dhegeysta haddii aan arrinta saa ugu sii fikirno taasi waxay muujinaysaa inaan aad u sii cabsan doono waan welweli doonaa khalaas mid naga mid ayaa cunayoo been dhaartay naga daaya hadda aan ka gudubno sheekadaas waayahay aan ka gudubno kulley anigu laakiin ma ihi war adigu hatartaa ahaan anba miihiye laakiin aan ka gudubno khalaas way ka gudbeen sheekadaasi subaxdii dabcan quraacdoodu iska samaysteen kadibna way baxeen barqadii oo waxay aadeen bannaanka socod ayay galeen si ay hadhow meeshaani ugu soo laabtaan socod ayay galeen way socdeen wareegeen meeshii bacaadkii isaga ciyaareen dabcan meeshaasi inay ka guuraan ayay mar go-aansadeen lakin waxay dhaheen may meeshan jawigeedu wuu qurux badan yahay sababtoo caratuur ayaa dhinaca naga xiga inta ka caratuur ayaa naga xiga inta caratuura naga xiga meel dugaalaho qurux badan ay ku aadan tahay yacni meeshan waa meel istaraatiijiya kama guurayno dhanka kalena wadadii way ka yar fog tahayo
yani baabuur kasta iyo qof kasta soo mara haduuna soo maro aniga laftirkeena macno noo samayn mayso meeshana iska deganayna laakiin aan soconno maalintii soo socdeen way soo baashaaleen xaabo way soo gurteen xitaa iyo habeenkii shidan lahaayeen duurtii meesha kusoo laabteen qadadooda ayay karsadeen kadibna markay qadadooda samaysteen kadib waa ay iska baashaalayeen maalintaasoo dhan habeenkii ayaa la gaaray markii fiidkii la gaaray oo qaxwo samaysteen waa maalinkii xigay ayaa laba ka mida bannaankii fadhiyeen midna waa khaalide waxuu ku jiray qolka dhexdiisa ama tayndhada dhexdeeda kadib khaalid waxuu maqlay codka gaari soconaya gaari yani sidaasoo kaleeto dhawaaq noocaasoo kaleeto bixinaya gaarigaasi waxaad moodaa inuu codku soo siyaadayo yani codka markuu soo siyaadayo approach yani uu kuu soo dhowaanayo waxay ka dhigan tahay gaarigu xaggaada usoo socdaa waa uu soo baxay kadibna labadii banaanka fadhiiso u yimid wuxuu yiri gaariga ma aragtaan waxay may gaariga ma aragno wuxuu yiri may anaa u jeeda waa kaas iftiinka gaarigu laakiin hadda waxa uu ku soo aadamay caratuurkan ayuu ku soo aadamay yani caratuurka markii xagga loo dhaafo waa god gaarigu godkaas uu ku jiraa cabaar hadduu toos sidii hadda aan u arkaya hadduu usoo socdo caratuurka uu soo fuulayaa kadibna yani tayndhadana horteedu soo mari doonaa waan istaaji doonaa okay waayahay waan istaaji doonaa aan sugno laakiin codku waa la maqlayaa sax dhammaantood codku wada maqlayaan codkuna waa uu soo siyaadayaa waa uu soo socday gaarigii dabcan ayagu ma arkayaan waxay isleeyihiin madaxa markuu la soo baxo buurka soo koraad arki doontaan cabaar si isugayeen ugu dambeyn codkii oo dhan waa i waayeen hay sidee wax u jiraan war codkii gaariga aawey gaarigiisa aawey may way soo ordeen buurkii ayay fuuleen si hoos u eegaan inuu gaariga ku jiray in kale wax gaariya meesha ma yaalaan iska badaayi raad gaari meesha oo dhan kama muuqanayo aawey gaariga codkiisa aan maqlaynay ma garanayno markaas ayay bilaabeen inay isla hadlaan iyagoo dhahaya nimayahow haddii waxa maskaxdeenu i sheegayso aan raacno cabsi iyo wadna istaag ayaan u dhimanaynaa sababtoo cabsi xoogan ayuu mid kastoo naga mida dareemayaa laakiin waxaan isku dayaynaa inaan qarino dareemaheenna iyo cabsideenna intaan ka badan yaana been isu sheegin runtaan isu sheegno aan dhahno yani naga daaya waxaan jinkan iyo waxa maskaxdiina ku jira naga daaya gaarigani wuxuu ahaa gaari caadiya wuuna leexday midig ayuu u leexday markuu anagana arkay ama bidix ayuu u leexday markuu iftiinka arkay markaa naga daaya waxaan jin ma ahan waxa maskaxdiina ku jira mid kasta wuxuu leeyahay okay waayahay aan ka soo qaadno inuusan ahayn waayahay markiiba waxay dhaheen cashadeennii aan cunno yani hilibkii ay fariijkii ka soo bixiyeen saxankii ay kusoo shubteen waxay bilaabeen inay cuntadii cunaan laakiin saaxiibayaal markii ay cuntadii bilaabeen inay cunaan oo cabaar ay cuntada ku dul sheekaysanayeen ayaa waxay arkeen weliba si wada jir ayay u arkeen bisad laguma tilmaami karo laakiin waxay arkeen in iftiinka holacu ama dabka iftiinkiisu uu qabanayo laba indhood yani iftiinka markii shay iftiin uu qabto kale waxaa laga yaabaa in indhihiisu ay iftiin kaloo reflection soo sameeyaan sida tusaale ahaan haddaad xayawaanada qaar toosh ku shido ama aad wax samayso maogi inaad aragteen laakiin waxaa kugu soo laabanaya iftiin kale indhahooda iftiin soo bixinaya kugu soo celinaya marka waxay arkeen laba indhood kadibna dabka waxaa muuqanaysa in dabka iyo iftiinkan iyo waxyaabahan ay isticmaalayaan ay muujinayaan kadib waxay dhaheen labadaas indhood waa maxay kadib ayay waxay soo qaateen tooshka weynaa way ku shideen saa meesha waxaa taagan bisad madow laakiin bisada waxaad moodaa inay bisadaha xoogaa ka yara weyn tahay bisadaha caadiga inay ka yara weyn tahay laga yaabaa marka waxay dhaheen sidee ku dhici kartaa meeshan saxaraha inay bisad imaato kadib khaalid ayaa wuxuu yidhi dhegeysta waxa dhan maantood adikaa weyneynaya inaga daaya yaakhay bilaahi calaykum waxani waa bisad wax dhiba ma jiraan waxay ka imaatay tuulooyinka noogu dhowdhow cuntadan ama hilibkan aan cunayno ayay soo carfisay wax weyn ma jira waayo horta wax dhan aad uga dhigaysaan in ay wax kala yihiin kadib xasana wuxuu yiri niyo haddaan Khaalid been isu sheegno maanta oo dhan oo nafteena aan been ku qancino hadhow dhibaato ka weyn ugu dhici karta maanta dhan wixii aan soo arkaynay ilaa habeen hore aan waxna aaminsanahay inaysan wax caadi ahayn sidaa darteed waxani maahan bisad oo waa bisad Ahmed Khaalid iyo Xasan buuq ayaa dhexdooda ka dhashay kadibna Xasan ayaa soo istaagay cad hilib ayuu soo qaaday wuxuu aaday bisadii xageeda kadibna bisadii ayuu hilibkii u tuuray wuxuu maybe in iska gaajaysanto kaleeto oo hadii cunto ay naga tagto bisadii markuu u tuuray bisadii maxay samaysay si caadiga maxaad garanaysaa hadad bisad u tuurto hilib ama mukulaal ama yaanyuur markaad hilibka u tuurto falcelinteedu ugu horeyso waa maxay waa in hilibka xagiisa u orado
laakiin bisadaani waxba maysan samaynin khalaas way iska istaagsan tahay xaggooda ayay soo oogeysaa iftiinka indhaha bisadaasi ka soo baxaya ayaana si toos ay u arkayaan way yaabeen labadii kale gadaalkiisa taagan yihiin hilibkii uu tuuray ma aadayso maxaa sameynaa mid kale soo qabo waa lagu tuuray ayadaa lagu aadiyey ma dhaqaaqayso kadib ayagoo yaaban oo dhahaya ma ogaat mid kasta niyaduu iska leeyahay saaxiibayaal ma ogaateen waxaan ogaaday ma dareenteen waxaan dareensanahay bisad madow habeen madow indhaheeda iftiimayaan annagana soo eegaysa hilib cunaynin khalaas waan ogaanay durba waxay tahay ayagoo sidaa mid kasta uu niyadii iska dhahayo oo qaabay isugu sheegaan ilaa yihiin oo ay taagan yihiin oo istur ay ku dhegan tahay ayaga dhan ay mid kasta uu meel istaagsan yahay ayaa waxaa dhacday in bisadii hal mar ay booday kadibna yani bisadu caadi way orodaa laakiin tan way boodaysaa 2 mitir 3 mitir ay ka boodaysaa haddana bootin kale ay boodaysaa bisad sidii sigaaradii oo kale u ordaysaa way oroday bisadii ilaa ay fuushay caratuurkii ayay fuushay kadibna dhinaca xagge ayay uga degtay markay dhinaca xagge uga degtay ay leeyihiin ma noqon kartaa waxaan bisad caadiya markaas waxay dhaheen may runtaan isu sheegno waxaani waa jin hadda ayaan ogaanay waxaani inay jin yihiin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bisinkii qabsadeen ilaahay isku xireen waxay dhaheen wax dhibaataan nama gaarayso wax culaysa ma jiraan cuntadeen aan cunno khalaas cuntadii ayay cuneen kadibna cuntadii intay cuni waayeen way soo reebeen waxay iska galeen tayndhadoodii jinyeerkii tayndhadii ayay saa usoo xirteen markay tayndhadii soo xirteen waa ay seexdeen markii ay sidaa u seexdeen 2 ka mid ah dabcan daalkii iyo howlihii ay maalinta qabteen ayaa caawiyey oo way daalanayeen oo way seexdeen laakiin mid ka mid ah oo xasan ah ayaa asagu soo jeeday oo waa uu fekerayay waxuuna ka fekerayay wixii ay arkayeen gaarigii bisadii wixii cadaayeen marna weynaanayay marna yaraanayay waxaasuu ka fekeraya isleeyahay maxaa dhacay tolow meeshaan maxaa ka jira waa maxay saxankan la nadiifinayo habeenkii inta cuntada uga tagno kulli caawa waan uga tagnay biri subaxan arkaynaa asoo waxaa ka fekeraya ayuu waxau maqlay hal mar labadii kalena way hurdayaan wayba qooriyaanba waxau maqlay wax weyn oo soconaya markay saanta dhulka dhigayaan oo kaleeto wax aad u weyn hataa geel iyo kama hadlayo daynasoor hadduu agtaada soconayo oo kaleeto maxaa dareemay ama maroodi dhulka wuu kula gariirayaa kow يعني markuu lugta laado dhulka dhigana gariir yar dhulka ka dareemaysaa dhanka kalena yani waa dareemaysaa jaqaf caadi ma ahan jug oo kale waxaas ku dareemay waa u yaabay waa maxay waxan weyninka badan oo tayndhadiinaba intaasoo jeer ka weyn oo malaha hadduu tayndhadaba lugta saa u saara adinka dhan aad budo noqonaysaan maxay noqonayaan waxan waa u yaabay kadib cabaaru isdhejiyey kadib waa uu waayey wixii markuu wixii yani jaqaftooda ay qarsoontay oo ay u muuqanayso inay wixii tageen ayuu wuxuu maqlay wax cunto cunayo kaleeto yani cunto ayaa la cunayaa dhawaqa cunto cunowga ayuu maqlayaa qof xitaa cunto si aan shaxaysan aan cunayninoo yani maxaan maqlayaa waa uu yaabay wuxuu yiri kolley wixii cuni jiray saxanka weeyaane soo bax arag hal mar caawo hal mar waxaan ha ku dhaafaan kadib aad seexatid adoo caadiya xitaa aad dhulka isu dejiso ma seexatoontid kadib waa uu soo baxay fiicnaan lahaydaa inuu labada saaxiibadiisa kiciyo muusan samaynin midaasi waa uu soo baxay tayndhadii ayuu iska furay banaanka ayuu soo istaagay waxa uu fiiriyey meeshii saxanku uu yaalay saxankii ayuu eegay saxankii waxaa dul fadhiya wax sida caadiga ah shakli ahaan bini aadam ah laakiin wejiga bisadka ah dhanka kalena duf badan ama timo badan oo madow ahna ay saaran yihiin wixii way madow yihiin oo duf ayaa saaran laakiin shakliga gacmaha lugaha dad eegto waa bini aadam dhanka kalena wejiga waa madaxa waa bisad madax weyn leh oo madax bini aadam la eg bismillaahi sawirada ee ayga lagu sameeyo moodaa oo yani waxaas leedahay war waxaani waa maxay markii uu muuqaalkii arkay oo uu arkay waxaani inay saxankii dul fadhiyaan gacantuu la galaa kadibna gacantiisoo macalaa dufteedii iyo wixii oo dhan ay qoyan yihiin ayuu haddana afka la galaa waxse qaabdaran wax u cunayaa
wiilkii argagax ayuu dareemay, aad ayuu u naxay. mararka qaar markaad naxdo qaylo xitaa ma karaysid, yani mar haddaad qaylinayso waxay ka dhigan tahay weli naxdintu meel halis samaysan gaarin. hal mar ayuu arkintii u arkay uu yiri, hal mar uu neefta soo jiiday ayaa khalaas waa u miyir daboolmay, dhulka ayuu ku dhacay wiilkii. markuu wiilkii miyir daboolmay ayaa ugu dambeysay asaga xasuus oo dhan. dabcan intaasoo dhan waxba mausan xasuusanin. asaga mar dambe uu ka sheekay doonaa, waxau yidhi subaxdii xigtay markay soo kaceen ayagu oo ay aniga i kiciyeen ayaa iigu dambeysay arag, yani wacyi ahaan iigu dambeysay. intii ka horreysay waan baxsanaa. dabcan subaxdii sida caadiga labadii ayaa soo kacday fajarkii, ninkaanoo meesha yaallay arkeen, way soo istaajiyeen, biyay ku shushubeen, waa uu soo naaxay, kadibna way fariisiiyeen. waxay ku dhaheen maxaa kugu dhacay? ma hadlayo, shib, afkiisu waa uu xiran yahay. waa ay yaabeen, salaatii dukadeen, waxay ku dhaheen salaada duko. dabcan waa uu dukaday salaatii, laakiin ma hadlayo. war hadal, maxaa kugu dhacay? ma hadlayo. maxaa kugu dhacay? hadal, ma hadlayo. way yaabeen, maxaan samaynaa talow, meeshaan meel fiican maahan, waxbaa dhacay. kadib ayagoo saa isku haysta ayaa waxay fiiriyeen saxankii. saxankii waa la nadiifiyey. saxankii waa la nadiifiyey, sidii habeen hore loo nadiifiyey oo kale ayaa loo nadiifiyey. khalaas, meeshaan meel fiican maahan, waa inaan meeshaan isaga tagnaa. labadoodii waxay ku fakereen meeshaan inay isaga tagaan. magaaladii ayaan ku laabanaynaa, safarkii dalxiiska waa uu noo dhammaaday, waxaa muuqanaysa meeshaan inay tahay meel halisa. saaxiibkeena dhibaatadan ayuu la kulmay oo hadda miyirkiisii yani waa u joogaa, laakiin ma hadlayo. waa inaan meeshaan isaga tagnay intii dhibaato kalena soo gaari lahayd. sababtoo waan dareemaynaa in saaxiibkeen jin uu taabtay, waan dareemaynaa in yani masi ama jin taabashadiisa ay ninkaani ku dhacday. durbaa wiilashii dhallinyarada ahaa go-aankaas ayay qaateen. kadibna wiilkii ayay soo saareen gaarigii. wiilku waa uu fiican yahay sidiisa kale, laakiin ma hadlayo keliya, hadalka ayaa ka xiran. way soo qaadeen, magaalada ayay imaadeen. markay magaalada imaadeen gurigiisi maysan geynin, wax kale maysan samaynen. waxay sii toos u aadeen gurigii ninkii shiiqa ahaa ee dadka qur-aanka saari jiray oo ay garanayeen. shiikh ayay u geeyeen, qisadii ayay uga sheekeeyeen. waxay ku dhaheen, shiikow, wiilkii waa kanaha, wixii loo baahan yahay oo dhan anagaa keenayna, laakiin waxaan rabnaa in wiilkaani qur-aan la saaro. waxuu ku yiri, may shiikh, waxba ma jiraan, wax loo baahan yaho kale ma jiraan, keliya qur-aanka ayaa la saarayaa. sheekhii ayaa wiilkii hortiisa soo fariisiyey, qur-aankii ayuu ku aqriyey. markii uu shiikhu qur-aankii iyo adkaaraadkii uu ugu talagalay ku aqriyeyba, wiilkii waxba ma iska bedelin. yacni intii loogu talagalay waa lagu dhameeyey, laakiin waxba iskama bedelin. wax dhaqaaqay ma jiraan, wax ka dhex hadlay ma jiraan, laakiin hadalkii weliba uu ka xiran yaho. wiilkii hadalkii umuusan furmin. wiilashii waxay ku dhaheen, macalin, maxaan samaynaa? kadib waxau ku yidhi sheekhii, dhib ma lahan, 7 beri ayaa loo dhammaystirayaa. maanta waa 6 beri oo kale ama 6 maalmood oo kale ayaad keenaysaan, qur-aanka ayaa la saarayaa. mar walbana waa inaad adinku la socotaan si aad u celcelisaan haddii lacala xaaladiisa ay wax ku soo kordhaan. waayahay ayay ku dhaheen, gurigiisa ayay geeyeen. waalidiintiina way gaarsiiyeen sheekada. 6dii maalmood, yani 6dii maalmood ee xigtay ayaana u bilaabatay, oo maalinkii labaadba waa la soo celiyey wiilkii. markii la soo celiyey, labadii saaxiib way la socdaan, waalidiintiina way la socdaan. shiikh ayaa loo keenay. shiikhii wiilkii qur-aankii ayuu saaray. sidiioo kale wax isbedela ma jiraan. maalinkii 3aad, maalinkii 4aad, maalinkii 5aad, maalinkii 6aad, waxba iskamaysan bedelin. qur-aan ayaa lagu aqrinayay, laakiin wiilkii hadalkii ayaa ka xiran. abkam, akhras, yacni maxaa ku dhacay wiilka? maxuu afkiisa u xiran yahay? hal hadal ma sheegayo. ishaaraad waa laga yaabaa inuu bixiyo, laakiinse ma hadlayo. si caadi uu dhaqmayaa, wuu dukanayaa, waa uu dhaqdhaqaaqayaa, laakiin inuu qof la hadlo oo qof wax fahamsiiyo ayaa ka xiran. maalinkii 7aad markii shiiqa loo keenay, oo maalinkii ugu dambeeyey ay tahay, oo quus ay taagan yihiin qoysaska, xaaladda wiilka lala yaaban yahay, shiiqu xitaa uu yaaban yahay. qur-aankii ayuu ku aqriyey, aayadaha jinka iyo ka hadlaya ayuu ku aqriyey. kadib ayaa waxaa dhacday hal mar in wiilkii wax ka dhex hadlaan, laakiin maxay dhaheen, waa nin waxa hadlaya, waxau leeyahay, jooji qur-aanka, way aad qur-aanka u aqrinaysaa, maxay tahay sababtaad qur-aanka u aqrinaysid? waxau shiiqii ku yidhi asoo yaaban. dabcan wiilashu waa isku naxeen dadkii oo dhan. shiiqi waxau ku yidhi, waxaan u aqrinayaa qur-aanka inaad adigu ka soo baxdo. ka soo bax, maxaa adiga ku geliyey? waxau dhegeyso, anigu waan ka baxayaa, laakiin si adigu jooji qur-aanka ad aqrinayso. midda kale, aslan maxay tahay sababtaad qur-aanka u aqrinayso? maba ahaba inaad qur-aanka aqriso, sababtoo wiilkan anigu 2 jeertaba waan ka bixi lahay. wuxuu ku yidhi, dad ka bixi lahay 7 beri ayaan qur-aanka ugu wadnaa, maxaad u bixi ladahay? waxau yidhi, wiilkani sababtaan u galay ayaan kuu sheegayaa, qisadaan kaaga sheekeynayaa.
wuxuu okay iiga sheekay jinkii ayaa hadlaya oo ku hadlaya carabka wiilkii miskiinka ahaa. waxa uu yiri wiilashaani waxay soo kordhigeen gurigeygii caruurta aan ku korsan jiray. markii ay soo kordhigeen waxay bilaabeen ayuu yiri inaysan adkaar akhrisan. waxay bilaabeen in cuntada ay cunaan ayagoon bisinka akhrin. waxay bilaabeen inay si caadi ah u noolaadaan. wax walba oo ay arkaanna waxay uga fakarayeen si caadi ah. marna maskaxdooda kuma soo dhacayso inay soo kordhigeen qoom kale oo ayaga ka duwan, marna ixtiraamaynin. waxay sameynayeen wax walba maskaxdooda ku soo dhaca. markastoo ina arkaan anagoo shakli ka mid ah ashkaash isticmaalayna ama sheeb anagoo isticmaalayna, waxay isku dayayaan inay anaga na dabagal nagu sameeyaan. haddaan bisad nahay, haddaan eynahay, haddaan bini aadam u ekaano iyo haddaan gaari u ekaano, mar walbaba waxay isku dayayaan inay xogaheena ogaadaan. taasna cariiri ayay nagu haysay. laakiin hal mid aynu uga faa'iidaysanay oo cuntada ay cunaan maadaamaysan bisinka u qabanaynin, haddana waxay samayn jireen cuntada meesha inta ugu dambayso dhan way ka tegi jireen. aniguna ilmahaygan soo wadan jiray oo cuntada ayaan ilmaha siisan jiray. waxuu habeenkii ugu dambeeyey wiilkaani waxuu sameeyey uu yidhi anoo cuntadii ilmaha siisanaya ayuu soo baxay. kadibna waxaa muuqanaysay inuu aniga i arkay laakiin ilmahayga uusan arkin. kadibna waxa uu yidhi markii taasi dhacday waa uu isku naxay. hadduu hadli lahaa ama uu caadi ahaan lahaa hadal buu ka soo bixi lahaa, aniga iyo ilmahaygaba waan qarsoomi lahayn. balse taa muusan samaynin ee dhulka ayuu ku dhacay. markii uu dhulka saa ugu dhacay oo miyir daboolmay asagoon waxaad kaara akhrisanin, xilligaas waxaan dareemay in uu halis ugu jiro in jinka kale ee diimaha kala haystaahe ay galaan si ay u dhibaateeyaan. jin kiristan ah iyo majuus iyo kuwo dabka caabuda iyo kuwo kala duwan ayaa meesha joogay. sidaa darteed anigu waxaan ka baqay inaan anigu sababteyda ninkaani ay dhibaato usoo gaarto. waxaan dareemayey maadaama aniga cabsi uga cabsay darteed uu dhulka ugu dhacay, haddana uu halis ugu jiro inuu jin galo. haddii jin gaala uu galo uu dhibaateeyo, anigu hadhowtii aan shalaayi doono oo dhibaato anigu aan sabab u noqday ay noqonayso. kadibna waxau yidhi si aan jinka kale uga ilaaliyo ayaan anigu galay. jirkiisa ayaan muddadaas 7 maalmooda ku jiray, waxaana ka difaacay intaasoo jin ah oo gaalaa oo doonayay inay jirkiisa galaan. wax kalena kumaanan samaynin ee 7daas maalmood waan ilaalinayay jirkiisa. haddana waan ka baxayaa ayuu ku yidhi. weliba waxauu yidhi wiilka fariinha layga gaarsiiyo iyo 2 wiil oo saaxiibadiisa, haddii aad hadda kadib baxaysaan oo aad tegaysaan meel cidlaa, ogaada meel cidlaahi ma jirto oo waxaa ku nool dad kale ama qoomam kale. anagu meel walba waan joognaa. waa inaad ixtiraamtaan, waa inaad ogaataan inay dad kale jiri karaan, waana inaad ku xisaabtataan wax walba inaysan ahayn wax caadiga aad u arkaysaan. waana inaad adkaarta akhrisataan. waa in mar walba aad ilaahay isku xirtaan oo aad adkaarta akhrisataan. wax walbo aad cunaysaana aad bisinka akhrisataan oo magaca alle aad cuskataan. fariintaa laga gaarsiiyay ayuu yidhi. jinkii muslimka ahaa fariintii ama ballankii uu qaaday waa uu oofiyey. markiiba waa uu ka baxay. markii uu ka baxay qur-aankiina la saaray, dabcan wiilkii waxa uu bilaabay inuu hadlo. markaas kadib ayaa la wareysto lagu yidhi maxaa kugu dhacay, goormay kugu dambeysay waxaad sheegto ama waxaad ogaato. waxa uu yidhi habeenkii markii aad seexateen anigu waan soo kacay. kadibna sababtoo aadan ugu fekerayay, kadibna waxaan arkay dhaqaaqa bannaanka ka yeeraya. kadib cabaar kadibna cuntada cunitaankeeda dhawaaqeedan maqlay. kadibna waa soo baxay, waxaana arkay bini aadamkan dufta xoolaha leh, madowga laakiin madaxa bisada leh. kadibna ilkiisu ay dhaadheer yihiin oo cuntadii isaga gacmaha ula gelaya. waxau yidhi naxdintii aan naxay ayaan dhulka ku dhacay. markaas ayaa igu dambeysay. waxaana soo miyirsaday markii aad subaxdii kicinayseen. kadib waxau yidhi wixii markaa ka dambeeyey carabkayga waxaad moodaa inuu xiran yahay. waxaan rabaa inaan hadlo laakiin maanan awoodi karin ayuu yidhi. calaa kulli xaal wiilkii sidii ayuu arintii uga badbaaday. wiilashiina arinkaasi cashar weyn ayuu u noqday, si meel walba ay u tagaan ay u akhristaan adkaartooda. waxaana naloo jideeyey marka aan tagno meelo cidlaa ama waadiyo aan ku lugaynayno ama xitaa guryaheen aan caadi u jeegno, maqrib kasta markii la gaaro in aan akhrisano acuudu bikalimaatillaahi taamaati min shari maa khalaq. ilaahayow waxaan magan gelayaa kalimaadka ilaahay ee dhammaystiran, waxaana ka magan gelayaa sharta uu ilaahay abuuray oo dhan. ereyadaasi oo ku siinaya kalsooni xoogan oo aad qabto inaysan dhibaato ku gaari doonin marba haddii aad 3 jeer ku celiso maqribkii markii la gaaro.
saaxiibayaal qisadu waxay ahayd mid cibra ay ku jirto dhan kale qisadan waxay ahayd mid faaftay oo gudaha dalka Sacuudiga caanka ah in badan oo kanaalo badan oo Carbeedna ay ka sheekeeyeen dad badan oo caana oo Carbeed oo qisooyinka jinka iyo waxyaabo la xiriira ka sheekeeyay xitaa culimo ay ka sheekeeyeen aniguna maanta ayaan idiin soo turjumay oo aan idiin soo gudbiyay ugu dambeyn waxaan idin xasuusinayaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelka subscribe saar haddii aadan horey subscribe u saarin walaalkiin iyo video ugu dambeyn idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo